arday Soomaaliyeed oo ka socota kulliyadda caafimaadka jaamacadda SIU ee dalka Soomaaliya ayaa waxa ay muddooyinkan aqoon kororsi u joogaan magaalada Kampala xarunta dalka Uganda iyagoo ka helay aqoon kororsi muddo hal sano soconaysa jaamacadda Makereri oo xiriir la leh jaamacadda SIU ee Soomaaliya. ardadan ayaa uga warramay warbaahinta qaranka heerka waxbarashadooda muddada halka sano iyo waayo-aragnimada ay qaadanayaan. sanadka shanaad ugu horreyn waxa maas kale Allah markii hore waxa maas kale jaamacadda Soomaaliya International University taasoo siisay jaanis ay helin arday badan oo Soomaaliya. runtii jaamacadda waa jaamacad aad u weyn jaaniskeedana qof kasta macnaha ma heli karo inaan wadanka dibadiisa ku soo qaato kalashibka sanadka shanaad ardayda ay ku qaataan 4th year-ka ama 5th year-ka sanadka afraad iyo sanadka shanaad waxay jaanis siisay kalashibka oo ah in bukaanka alama caamili kartid adoo ka qaadayo history complete ama warbixin oo dhameystiran warbixintaas oo ku siinayso bukaanka cudurku qabo ama diagnosis u gaari kartid markaas aad ku manage gareey kartid bukaankaaga. Very colleague, a very good colleague. I remember I didn't know how to do clerking for the first time I came here, but he helped me a lot. He helped me study a lot, and he helped me even sometimes when you're clerking patients, some of them may not know English, so he was there for us. He was there for me to translate their language to English. dadkii aan kula sameyn karo dhaqaatiirta kale badan aan la wadaagi karo marka xamar joogay iyo marka inta joogay farqi aad u weyn u dhaxeeyo labadii sano inta aan joogay Afrika iyo 3 sano xaqaq aan soo qaatay wadankeena SIU waxba nagama hakaranin marka xagga joognay si fiican wax noo la baraayay. بسم الله مركورام الله بسم الله الرحمن الرحيم مركوري إلهي ما تسكله إلهي كسكو وحما تسكله مامورك جامعة عالمية الصومالية جامعة SIU تاسو نصور تجلسي إن نسيسو program exchange program أنكو إيمانو جامعة أفراد أفريقيا. علمي عثمان فارح بودري راديها يتلفشي كقرنكا كمبلا.